السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف كده الله ولكن على معو شريف يدنعي وحفظ يا شيخ آدم الشيخ أحمد إن شاء الله تعالى. سيد عدد نود إن شاء الله تعالى ما أنت حديث آخر رايا وقصاب شن قضب أدي أن كم قلنا أما كبر بعدنا إنه إلهي نوفض وضد جلد إن شاء الله تعالى. شيء آدم كسره إن شاء الله. الله كله بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meelaad joogtaan baa idin salaamay salaanka bacdi walaalayaal waxaynu wadaagaynaa insha Allah ta'ala mawcida yar aynu soo gaabino ilaahay inagu anfac subhanahu wa ta'ala mawcidaas waxay tahay shan qodob oo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam uu inooga digay in aynu sameeyno ama aan la kulanno saxaabadiisana ilaahay uu ka magan galiyay inay la kulmaan rasuulku sallallahu alayhi wa sallam shanta qodobna waa shan aad iyo aad u dhib badan weeyii rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa sallam xadiidka waxa wariyay ibn Umar baa warinaya xadiidkan marka rasuulku wuxuu yiri ya ma'ashara muhaajiriin kulankeedii khamsu qisal idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna lam tadhhar al fahishatu fi qawmin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' aya rasuulku sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu yiri muhaajiriinay wuxuu yiri qoom ma sameeyaan buu yiri qoom kama daahirta faaxisha waa zinada hadii ay ka daahirtana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku ibtilaya kuna itixaama laguna ciqaaba shayga la yiraahdo taacuunka iyo shayga la yiraahdo awjaa cudurro la garan waayay ayaa lagu itixaama taacuun iyo awjaa baa lagu itixaama rasuulku yiri صلى الله عليه وسلم waxyaabaana dhamaanteena weerariya karoonaha iyo masiibadan iyo balaayada la garan la'yahay waxa weeye waxay ka dhalataa shay ognahay dunuub ayay ku timid walaalayaal saa awgeed rasuulku wuxuu yiri taacuun baa umada ibtileeyo lagu aafeeya oo lagu halaaga awjaa cudurro la garan waayay baa u yimaada cudurradaasoo kuwa ka horeeyaan ku dhicin ayaa rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo rasuulku yiri walam yanqudul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinin wa shiddati al mu'nati wa jawri sultan saasa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu yiri miisaanka iyadana dadku shayga ugu dhib badan waa xaqa xuquuqda umada weeye umada xuquuqdeeda hadii lagu xadgudbo oo umada miisaankeeda iyo xaqeeda loo oofin waayo miisaanka waxyaabaha la isu beego iyo xuquuqda ruuxa wuxuu xaq u leeyahay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa sallam hadii ruux xaqiisa loo diido xaqiisa laga maartay laga manciyo taasna waxa ka dhalata buu rasuulku yiri waxa masiibooyinkana ka dhashay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam sanada oo la waayo madarka ilaahay ka maana buu madarka alla u diida roobka waxa kale oo loo diidaa buu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ilaahay wuxuu ku dhigaa maciishada lagu itixaama maciishada iyo nolosha ayaa lagu ciidi galiyaa rasuulku sallallahu alayhi wa shiddati al-mu'na wa jawri sultan sultanka iyo ninka xukumayana ilaahay wuxuu kaga dhigaa buu jawr mid jaa'ira oo magaranaysa xumeeya oo nagaajinin masaalixdooda iyo magaranaysa xukunkooda ayaa rasuulku yiri waa saddexdaas laga dhaxlaa buu yiri wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam lam yu'u zakata amwalihim illa man yu'il qadra min as-samaa wa law al-bahaim lam yumdiru umadu buu rasuulku sallallahu alayhi zakada haday bixin waayaan oo zakada ay diidaan zakadu waa xaq uu leeyahay masaakiintu ay leedahay weeye ilaahina kuwa waxay ku waajib yeelay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa laga madarka loo diidaa ayagana madarka laga maanaca madarka ayaa laga maanaca hadaan xooluhu jiri lahayna iyo bahaymtu hadayna jiri lahayna roob lama siiyeen وعقابته إلهي ودول سرين لهيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وعقابته لقد حلو زكاة ولا بحين وايو هذا بريده ويتوحد على الصومالي حوالين يكرم ماذين وحوليه أي إبر نقدين ونكي حوله بدنا يستمر عدا ويسوي يستاج حيابها السبب يوحى كم ذا حوله الزكاة اللي بحين وايا كم ذا أو مساكين تحق ذا لقى من عيول السين وايو رسولك عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعضهم فيما في أيديهم وما لم تحكم أئمة بكتاب الله
ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم برسولك صلى الله عليه وسلم ومضوا برسولك يدي هدي بريان عهدك إلهي عهدك رسولك وكتابك إلهي سنة رسولك هدينا نسكو دقين ونكون كحكم أيانا كحكم كوا لحكم أيانا لغو حكم وإن يسغرها لنقنين وحا رسولك إليه صلى الله عليهم عدوا إلهي عدو بكو صلى الله مصيبة كدلت وحوي رسول إن عدو إلهي قورت أقليه من غيرهم عدو يقعنا هين بو إلهي قورت أقليه أيغنا وايس بابيان برسولك إليه أيغنا وايس بابيان وايس لايان وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل إلا جعل الله بأسهم بينهم dadka aimada xukuma hadii ayna kitaabka Ilaahay ayna u dooranin inay ku dhaqaan ummadana waxa ka dhalata inay islaayaan hadii ahdiga Ilaahay iyo ahdiga rasuulka ay buriyaana ummadaas waxa rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wa sallam cadowba Allah ku saladaa oo ciqaabta ka dhalata waxa weeye hadii ballanka Ilaahay iyo ballanka rasuulka la buriyo in cadow Ilaahay gacanta u galiyo ummada cadow lagu halaago cadow lagu salado korka laga saaro dadka xukumaya madaxdooda hadii kitaabka Ilaahay ku xukumin in iyagana marka Ilaahay gacantooda isku cadaabo وإسلايان وبرت إسكاسلانو وإسلايان ضاد في رسالة مركع عقاب تاس وعقاب مدمات ضد المسلمين تاميري شوغان بقى إني دول صارن تهاي أريمها نكذا شيء أريمها نكذا لنا يسا مركع قفك مسلم كو مركع دينتي يسنة رسولك يا كتابك إلهي يا علمك يا دينته يوحى مسيء إنه علمي يشوا ومصائبة لجلي ذنوبة لجليه وحيابها كذا لان كرامة كذا لان دونه روح إنه فهم يا مسلم كأ قيب وحكي قاعدنا يسامرك إنه دم بيكشوك سدو أما وقرنا يبلايد ماشى كتي ماضي عقوبته كشرت إنه قرن كرو أما ما وسكون يرني وحيابها الله سمعني يفلك أمرك هربا عقوبته كذا لان دونته أوجد مركز أوجد مركز ضد مسلم كأ ويعاوسا مركز قفك إنه علمي يقانو ويعاوسا وحب ضمبي كبد بادسا إلهي وحنا وديسنا ولا ينقو أنفعه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله